saaxiib daawade halkan waa janalka aynu ku leenahay YouTube-ka ee tubta wararka waxaad ku soo dhawaataa xoga iyo macluumaad wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo dagaalada culus ee ka dhex oogan wadamada Ukraine iyo sidoo kale Ruushka qodobadan aad ku daawan doontaan barnaamijkan idinku soo maqana saaxiibayaal daawadayaal waxaa ka mid noqonaya ciidamada wadanka Ruushka oo mar kale bartilmaameedsaday xarumaha tamarta ee wadanka Ukraine waxaa la soo sheegayaa in Kiev ay ku garaaceen gantaalo magaalooyin kale ayay sidoo kale bartilmaameedsadeen xarumihii korontada iyo sidoo kale biyaha ayaa waxaa la soo warinayaa in si toos ah ay ciidamada wadanka Ruushka u ataagereynayaan ama ay u beegsanayaan sababta ka dambeysa ayaan saaxiibayaal daawadayaal barnaamijkeennii kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky amar culus ayuu sidoo kale ku soo rogay xarumaha tamarta ee wadanka Ukraine iyo sidoo kale dadka reer Ukraine ee muwaadiniinta kuwaas oo rayida ama ku lug lahayn dagaalada waynu soo qaadan doonaa amarka ka soo baxay dhanka Kiev iyo sidoo kale duqeymaha ay fuliyeen ciidamada wadanka Ruushka kuwaas oo saacadii la soo dhaafay gantaalo culus ku garaacay qayb ka mid ah magaalada Kiev oo caasimada wadanka Ukraine daawada saaxiib soo dhaw muuqaalka like saar si share garay inagu soo biir subscribe inoo saar channelka furagan baraalkaasi durbadii bay ku soo gaaraan muuqaalada inuu halkan idinku soo gudbino waa ku maasantahay daawada la socodkaada iyo la jaanqaadkaada intaba qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigana aragtidaada saliimka inagu reeb markaana daawada saaxiib waxaad ku soo dhawaataa faaqidaada ama falaqeynta qodobadii aynu soo dulmarnay markaana aynu ku bilaawno ciidamada wadanka Ruushka ayaa mar kale bartilmaameedsaday xarumaha tamarta ee wadanka Ukraine iyagoo ka dhigay qayb ka mid ah Kiev iyo sidoo kale magaalooyinka kale oo aan lahayn koronto iyo sidoo kale biyo micnuhu waxaanu la jeedaa Kiev iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ku yaala Ukraine ayay bartilmaameedsadeen amaba ay si toos ah ugu garaaceen gantaalo dabadeedna waxa ay halkaasi ka jareen xarumihii korontada iyo sidoo kale biyaha dacwad ogayaasha ayaa sheegay in 2 qof lagu dilay weerar ka dhacay caasimada wadanka Ukraine ee Kiev qiiq badan ayaa la arkayay oo ka soo baxaya agagaarka xarun koronto oo u dhow webiga Dnepro korontada iyo biyaha ayaa laga jaray halka la yiraahdo Zhytomyr oo ku taal galbeedka Kiev waxaana 2 xarumood si xun markaasiba loogu burburiyay halka la yiraahdo Dnepro weeraradii ugu dambeeyay ayaa dhacay 24 saac ee la soo dhaafay kadib markii Kiev ay duqeeyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee markaasiba la yiraahdo kamikaze diyaaradahan oo aan cidina wadin oo la aaminsan yahay in laga leeyahay dalka Iran ayaa ugu yaraan 5 qof lagu dilay ama ku dilay caasimada wadanka Ukraine ee Kiev halka 4 kalena ay ku dileen magaalada Sami oo ku taal waqooyiga dalkaas waxaanay duqeymahan markaasiba ama ay duqeeyeen kaabayaasha muhiimka iyadoo korontaduna ay ka gooday boqolaal magaalo iyo sidoo kale tuulooyin halkaasi ku yaala madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay talaadadii in markaasiba 8 maalmood ee la soo dhaafay 30% xarumaha korontada ee Ukraine la burburiyay taasoo sababtay madmadow weyn oo markaasiba dalka oo dhan ah Mareykanka ayaa isagana dhankiisa sheegay in diyaaradaha kamikaze ee Iran ay jebiyeen cunaqabateenada diyaarad dagaal oo laga leeyahay dalka Ruushka ayaa 13 qof ku geeriyootay kadib markii ay burburtay dhismayaal ama ay burburisay weeyaan dhismayaal dabaq ah Ruushka ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay kordhiyay weerarada ka dhanka kaabayaasha korontada ee magaalooyinka ka fog jiida hore ee dagaalka saraakiisha ayaa ku degdegay inay hagaajiyaan burburka laakiin shaqo joojinta ka hor xilliga jilaalka ayaa dhaliyay walaac ku saabsan sida nidaamka uu uga jawaabi doono markii hore ma cadeyn ilaa heerka ay gaarsiisan tahay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee markaasiba fuliyay weeraradan inkastoo Ukraine ay sheegtay in diyaaradaha Ruushka ay soo rideen gantaalo iyo hal gantaal oo lagu magacaabo S300 oo markaasiba
lidka diyaaradaha uu ku dhacay dhismo ku yaala koonfurta magaalada Mykolaiv habeen hore, halkaas oo uu ku dhintay hal qof. waxaa sidoo kale burburay suuqii ubaxa ee magaalada Zhytomyr. duqa magaalada ayaa sheegay in koronto ama biyo aysan ka jirin magaaladaas, isbitaaladana ay ka shaqeynayaan halkaasi koronto la'aan. weerarkii ka dhacay warshad koronto oo ku taala Kiev ayaa ka dhigtay deegaanka Toroyashny ee ku yaala dhanka webiga Dnepro mid markaasiba koronto iyo biyo la'aan ah. korontada iyo saadka biyaha ayaa hakad galay bartamaha magaalada Dnepro, halkaas oo la burburiyay xarun weyn oo markaasiba tamar ah. saraakiishu waxay sheegeen in la demin doono nalalka wadooyinka. duqeyn ayaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday magaalada Kharkiv oo ku taala waqooyi bari ee wadanka Ukraine. kaabayaasha dhaqaalaha ee koonfurta magaalada Zaporizhia ayaa sidoo kale la garaacay, inkastoo saraakiisha maxalliga ay sheegeen inaysan jirin cid wax ku noqotay. magaalooyinka qaar dadka reer Ukraine ayaa iibsanaya koronto dhaliyaasha iyo kuwa gaaska, halka guud ahaan dadka loogu markaasiba baaqay inay yareeyaan isticmaalka tamarta xilliyada ugu sareeya. magaalooyinka qaarna durbadiiba waxay wajahayaan madmadow. hal nin ayaa la sheegay in la dilay kadib markii la weeraray dhismo la degan yahay oo ku yaala Mykolaiv. waxaan filaynaa in Ruushku uu xoojiyo weerarada ka dhanka ah kaabayaasha tamarta iyo kaabayaasha rayidka oo uu kordhiyo dagaalka magaalooyinka xilliyada dayrta. halkanna waxaan dhab ahaan u joognaa dhacdadaas. Leysia Vasylenko oo ka tirsan baarlamaanka Ukraine ayaa sidaasi u sheegay warbaahinta BBC-da. qiimeyntii ugu dambeysay sirdoonka difaaca UK ayaa sheegay in ay aad ugu dhowdahay in Ruushka uu noqdo mid markaasiba sii kordhinaya oo doonaya inuu weeraro kaabayaasha rayidka marka lagu daro bartilmaameedyada militariga tan iyo dib u dhacyadii uu ku sameeyay goobta dagaalka toddobaadyadii la soo dhaafay. weerarada gantaalada iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa keenay baaqiyo cusub oo ka imaanaya dowladda Ukraine oo ku aadan in la keeno gantaalada difaaca cirka. mar sii horeysay Mareykanku wuxuu sheegay inay ku heshiiyeen xulafadiisa Faransiiska iyo UK in sahayda diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran ay jabisay qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee la xiriiray heshiiska nuclear-ka kaas oo mamnuucaya wareejinta tiknoolajiyadda militariga qaarkood. Ukraine ayaa sheegtay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo adeegsaday weeraradii lagu dilay amaba lagu qaaday Kiev iyo Sami ay ahaayeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Shaheed 136. Vedant Patel oo ka tirsan waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku aanu ka waaban doonin isticmaalka cunaqabataynta. Ruushka iyo Iran labaduba waxay beeniyeen in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Iran la geeyay. midowga Yurub ayaa sheegay inay aruurinayaan cadeymaha ayna diyaar u yihiin in ay markaasiba tallaabo qaadaan. dhanka kale mid ka mid ah maxbuuskii ugu weynaa ee la isku weedaarsado tan iyo markii uu dagaalka Ruushku bilowday Febraayo ayaa markaasiba la isweedaarsaday, waxaana 218 ay gaarayaan 108 ka midana waa haween Ukrainian ah. dhinaca badda Azov ee ka soo gudubtay Ukraine, diyaarad dagaal oo Ruushku leeyahay ayaa ku burburtay barxadda dabaqeeyo markaasiba halkaa ah oo ku yaala magaalada Yask. gudaana daawadayaal saaxiibayaal oo inaga inta wixii ku soo kordha waa daawan doontaan. halkaana waa tubta oo ahada iyo jeerle kala socotaan xogaha la xiriira dagaaladan tan iyo barnaamijkan kiisa kale. nabadgelyo.